kulankan ay magaalada Mombasa hotel ku yaala ay isugu yimaadeen guddiga beesha Bahgari ee gobolka xeebta ee dalkani Kenya oo kala socday ismaamul goboleedyada Mombasa, Kwale iyo Kilifi ayaa waxa ay diiradda ay ku saareen arrimaha siyaasadda ee sanadda 2022 doorashada ismaamul goboleedka county-ga Wajir. iyadoo ay kulanka ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, culamaa u diin, dhalinyaro, ganacsato iyo dumar. dadka soo kuray oo adduunka wadankeena wax la qabsataan rabeen oo wax bartaan idinka marka waxa laga rabaa inaad maamul iyo administration iyo wada socod leerataan iyo isku xirnaan si aad umada aad ay qayb gashaan haday noqoto magaalada Mombasa aan joogno haday noqoto dhulkeena hooyo oo aan ka soo tagnay idinka ma wax laga rabaa MB bari qaarkiina raba bari MCA rabaan Soomaali garab intaad karba kartaa laakiin wax administration ka soo waxa la rabaa inaad horta aad idinka ismuujisaan oo isku xirnaataan markaas qabiilka sidiisa magac hal meel ku fiican haddii aan kala go'no oo ka hebel aan dhahno wax qowl ma noqonayo sidiisa dhaayo waxaan maleynaa bari hore dhibki gaaray iyo waafaqadii Bahgari qabsatay wad ogeed alxamdulillah 2 sano aan garanti ahayd oo hadda Wajir soo ninka taana daraadantay Wajir soo dhibaatada ka taagan abaarta ka taagan waxa uu sheegay muxuu ahaayay Ibrahim warun Bahgari hadda midnimadeedu ma ogi wax kale u baahan tahay malaha waxa kaliya u baahan tahay waxay tahay inaan midnimo isku dumsanaan aan sameeyno mid kale wiilasheena waxa idinka codsanaynaa inaad maanta isqortiin gruubyano sameeysiin waqti noo ilaamisiin shirkada aan qabano horaan u sii socono inta nagala soo qayb gashay oo wicitaankeena maanta noo ogolaatayna waa mahadsantiin waqtigooda noo soo hureen mid kalena waxaan aan qabanay shirkada maanta u fadhino waxay tahay wax midnimo Bahgari heblaawa ah iyo kana kuuse ma aha midnimo Bahgari aan rabnaa insha Allah taala waana waxa anaga bilaawna idinkana nala qaban qaabiya nala garab gala hore u sii socono kuuraha maanta kuurahan waa idin baahan yahay 5 days mu 7 days horteeda idin baahan yahay doo alla ninkii oo shaqadiisa ka tagi karo iyo ninkii ka tagi karo businesskiisa ninkii nin u shaqeey waa in wiilasha la fasaxaa waa in jaanis la siiyaa wiilasha ay baxaan ay tagaan wadankii waxay ku hatta haday xoogooda hatta loo baahan ninkan ku ura lahayn laakiin waxaan sameyn karnaa dadkii qaban karnaa xoog iyo heel iyo holo waa gabdhaha iyo gabadheena Faadima Geedi iyo dhaayo labadaba garab waa u garab taagan ay wiilasheena MCyaasha u taagan kulli inta taagan kulligood waan taageersanaa laakiin waxa maanta shirkan iskugu wacnay dadkeena iyo qaraabadeena iyo familkeena waxa iskugu wacnay inay ka qayb qaataan Faadima Geedi iyo dhaayo labadaas noogu weyn ogaadeen bay wax ka rabaan Soomaali kale wax ka rabaan ummado kale wax ka rabaan annagi haddaan ku soo horjeesan oo maanta marba mid aan sheegno marba aan dhaan hebelowaasan waligiis wax iima qaban waligiis telefoon iga maqan waryaa ummadaan oo dhan telefoonka qaban kara hadda maanta 10 qof ku soo wacda ku wareeraysaa intaano bil aadan ku soo wacis qof telefoonka qaban karta ma laha ma fahanteen gudiyaal sameeysta qof waxa la rabaa Mombasa county amal inuu 2 qof 3 qof inaan u xil saarano oo noola hadla dadka madaxda laakiin haddaan ana wacay heblowa dadkii way wareerayaan anaga ku wareerayna telefoon marka qof madax uu wareerayo ma fahanteen dadka waxa idin ka codsanaynaa inaad iska daysiin waxaan aad leedin heblow telefoon igama qabto iyo heblaay telefoon igama qabto tafadal najibul hadda xirka sheego waa magaalo woode dhaayo wadu ahaana lama heleen waay waxaan sib noqotay uu ku jiro MB-ga in wadanka la kala gooyo oo la dhaca county-ga marka amaanaysi darar badan buu galay dhaqaalo ku bixi wood Bahgari kaliya ka dhigay meesha maanta Bahgari ku xisaabtamayso waay
marka maanta waxa furtaas haddana maanta noo asagoo haddana taagan oo bahgiri soo qaadi guddiga cabdulli qaralaas uu jaaman ku yahay dhaayo maanta kulli bahgiri day soo qaadi fursad kale uu leeyahay ala waxa mid ka arkeen nisbac loo soo dhaweynahay waana xawaanin magac yeeshi waqti 2 sano waadin muu kala qaadin cid kasto wax buu taray oo maanta ku sheegan karaan taas daraaddeed maanta magac uu ku leeyahay haddii uu soo galo maanta MB waxaan fursad u leenahay hawaas weyn ward ku badannahay aba qoray dalsan fadweyn in ward dana bahgiri kale oo siin karo iyo haddana fursad u leeyahay shan waxa jiro waa wax la iska qarinay malaha wadankan uu isbedelay sidii hore zamani odayaasha awaashan ay ku hogaamin jireen ma jirto wax maxaa imaado wax la dhaha devolution maxaa waaye pesa mashinani maxaa laga wadaa lacagta Nairobi yaashe guriyana loo geey sideen ku cunaa arinta ay meeshan ay yeesha so lacagta iyada iska macuneys haddii ay haysanin uu representative quman wax ku soo qaadi kara aan jirin wax ka qabsan karta malaha shaqadad kama qoran kartid waxa kama cuni kartid contract kama qaadan kartid waa inaad haysato ruux strong ruux oo maad wax ku qaban kara so wax kasta oo isku dagaalay meesha waa resource-ka waa county-ga yaal haddii aan wada jir wax ku cuni waynana waxa ma qabsan kara Kiswahili muuda kidole kimoja kiwichao soma hal cidii injir midisho soma maanta dhaaw soo sheegay waa maqlid meesha wuxuu dhahay bahgiri maanta hal qof ka taagan MB-ga tan ka hadal halka qof haduu dhaca history-gaada muxuu yahay meesha ku yaala gabdhaheena hadii wax idinka idin yeesha iyo wixii ka maqanbo mafahmisi wixii meesha ka maqan iyo wixii joogo maxaa waay arinta maxaa waay dhiiga laga dhimanaa nin kastoo county-gaas inuu resource ka raasoo raba option ma jira dadka ina haysata waay dhalinyarada yaa xagga aadi kara odayaalka yaa xagga aadi kara anaga aan istirkoobno resource-na aan mobilize gareyna waxaan haysanaa u maleynaa tentatively hal bille 8 August markaad 5 days ka goyso haddaad agent noqoto ama maxaan ku geynaynaa agent Faadimo Geediyaad noqoni oo part of Wajia maxaan ku geynaynaa Wajia county meel ay noqotoba ama maxaan ku geynaynaa Wajia South waxaan kaloo idin sheegayaa I'm pleased to inform you chief agent ninka la dhaha muhashimuha dhaayo waa aniga marka waxay ku fududaanay taas in aan ila soo xiriirta training aan dhici doono 5 days ka hor haddaan ku list gareyna qof noqoto fadal waxaan ka codsanayaa inaad noqoto qof WhatsApp-ka lagu heli kara telefoonka lagu heli kara oo dadka waqtiga meesha lagu kulmaayo iyo meesha lagu ballamo laga heli kara oo iskeeni kara tafadal marka those two actions plan aan u baahanahay Abdulaziz tafadal adintiga waxa ku filan hadda Soomaaliya meelaha dantan Ethiopia adintan kalena why because sayidka ka dhashay in oday baa anaga baasa iimaade madax ay qabsado yaa tay ugu dha koon fikiray waxa yura waa cidu raba saas marka daan bahgirayaan marka madax islaha warniyo sayidka ka dhalatay sayidka markaas meesha kala qaaday marka qofkii weydii sayidka marka boosting waxa waay identity-ga in la haatid sifa cunugaagan gaal ka soo socdo waxaas uu arkay adina ka dhisanaysa da sugeys in qofku u dhiso midda aan ku dhameynaa waxa waaye meeshan aad arkaysiin oo dadka isku dagaalayaan kursi banaan u yaala waan arkaynaa banaanka yaalo waana soo qabsan karnaa laakiin waxa waa aqal lagu soo qabsan lahaa in la isku daraa raaxo hadda meeshan waa la wada hadlay wixii oo hadli karo waa hadleen laakiin dibka jiro waxa waaye plan oo madaxa noo aan ku socono wax ka hadla ma jirto qof walba motivation speaker u hadlo program aan hagaajino aan ka bilaawno from this time on hatta hadduu election u dhammaado aan ku sii socon dadka is bartaan as ogaatid midda kale dadka aan ka hadlayo Faadimo Geedi iyo Dhaayo hatta day waxba ku qabanin goos maasan ka jooga laakiin maxaa helay waxaan ku faantamaysa at least there's someone representing Dhaayo sidoo kale laakiin ninka hadda laga rabo inaad soo dhisto oo soo istaajiso waa Mheshimiwa Dhaayo kulankana waxa uu ahaa kulan daba socday
kulan ay dhowaan ay yeesheen guddiga sare ee golaha beesha bahgeri ee dalkani Kenya uu gudoomiyaha u yahay mudane Cabdulle Diiriye kuwaasi oo meel mariyay in 4 kursi oo muhiim ah oo kamid ah kuraasta doorashada Soomaal goboleedka Wajeer ay beeshaasi u istaagto kuraastaasi ayaa waxaa kamid ah kursiga xildhibaanka dumarka ee Soomaal goboleedka Wajeer Faadumo Geedi oo mar kale kursigaasi u taagan isla markaana lagu taageeray iyo xildhibaanka u taagan kursiga koonfurta Wajeer Dr. Maxamuud Siraad Daayo iyo labada kursi ee golaha deegaanka ee MCA-yada ee Habaasweyne iyo Wajir East waan dhameynay bahgari way ka siman tahay marka maxaan iga codsanahaynaa inaan maxooga aan duubana aan xoog isku yeelna safartan aan ismuujina waan arkaynaa waxa ka dhacayo Wajeer Wajeer South iyo Wajeer guud ahaanba maadaama ay uma rabno noo taagan tahay MP uu noo taagan yahay meeshana bahgarida ay tahay magaalada ugu badan oo magaalada madaxda labaad oo wadanka waa Mombasa maxaan qaban karnaa sidii arrintu soo socotay alxamdulillah maanta meeshan aan isku wala imaanay gudaha hadaan u soo galo agendada ugu kow waa mobilization kan inta uu ka bilowdaa inaan is abaabulno oo balbahgarida aan isku keenno alxamdulillah maanta waan isku imaanay mid labaad oo ayadana muhiim zaid ah data inaan sameeyno dad meesha isku imaano aan iska kala tagno wax macno yeel ma laha data inaan yeelano dadkii wixii bal Wajeer South kuura ku leh iyo Wajeer East nafteedaba maxay yeelay bahgaridii aniga maxaan daba soconaa meetingkii ay bahgari committee Cabdulle uu hogaaminay ay sameeyeen waqtihiin 4 position ay bahgar noo soo qaaday mid waa midka woman rep oo ugu weyn midka labaad waa midka MP ga Wajeer South mid saddexaad waa midka Abaqur ee Habaasweyne ward Xuseenay midka afraad waxa yarka MCA ga Wajeer East intaba marka anaga taa ma xoojinayna maxay yeelay marka khayr la sii shaqadeena soo qabteen inaan tii xoojino ka soo qaybgalayaashii kulanka oo halkani ka hadlay ayaa waxay dhammaantood ay sheegeen inay tahay muhiim in si weyn looga qayb qaato doorashada isla markaana la xoojiyo midnimada beesha kulankan ayaa intuu socday khadka telefoonka waxa uga soo qayb galay Dr. Maxamuud Siraad Daayo oo isagu si weyn uga mahadceliyay kulanka iyo dadka soo qaban qaabiyay ee magaalada Mombasa sheegeen in loo baahan yahay taageeradooda waxaan dhihi lahay taageer aan kaga baahannahay dhammaan musharaxiinta ka taagan Wajeer koonfurta Wajeer MP ka bilaaba Umar Rab ku xijiya MCA ku xijiya taageer aan kaga baahannahay la'aantii kursiga ma heli karna waxaan kaga baahan yahay aqli maskax kuura xoolo dhaqaale iyo hilaba hadda waxaan kaga baahan yahay xoog aan kaga baahan yahay sanadkan loolanka aad buu ku leeyahay qoys walba waxay rabtaa inay ka soo bishata marka sanadkan dabayshu way noo fiican tahay noo imaada dhaqaaleena xooggiina iyo kuuriina iyo inta kuura qabna noo imaadana waa lagu maqlay maashimo aad baad u mahadsantahay waad mahadsantahay shukran sidoo kale aad baad u mahadsantahay waa lagu maqlay marka khayr badan insha Allah أحسنت xildhibaanada kursiga haweenka ee Soomaal goboleedka Wajeer Faadumo Geedi Cali ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in aad ugu faraxsan tahay kulankan iyaduna sheegtay in kulamada noocan oo kala ay yihiin kuwa muhiim u ah guud ahaanba deegaanka isla markaana iyadu ay u shaqeynayso dhammaan dadka deegaankaasi si wada jirana ay wax u qaban doonto reerkan isku imaadaan وقت السياسة اللي بجرا وقت ذلك اللي سكر النهاي ذلك ورانا اللي هاي لسوسو دوين النهاي وحيالات بدل بروباغندا بدل تسجرة وقت السياسة ذلك ولا كلا فايدة ذلك اللي سكدرا نيول بوزك كورو بالرسالة هي ذلك صفة عليه وحرسالة هدان كورات دولين أنا بيشي عن كدولين أنا ذلك ورانا اللي هاي مركب من ماذا إنه من حوجينه wixii cid dan u aan in la isla fiiriyo oo taas laga shaqeeyo waa muhiim ah hadalkeena intan kali kuma ekaan doonaan filaya inaan soo imaan doonaan insha Allah rajeynaya waxyaalo badan telefoonkaan aheen oo si fiican ugu hadli karno waxaan ka codsanayaa kulay inaad taageertaan oo garabna ay noqotaan aniga kursi aan doonayo waa women rep Wajeer County أنا كدونا يا صح Wajeer County لا وبدنا هيك هذا الساعة أو ترسماي ما دام كنت لو كفر شقة بدنا عن قبضي إنت ما هذا القرآن نص قاضي
عد كلمة الوجهة ودن يوقوي بريودن ما أنت قصة تري في السنة أنا قبلتين أنا قضي أخيرا تقرب بين قطاع الصوت حضانا كل كياد ما ضاع يركب بقريتنا إن شاء الله يكفلنا أنا bahgari maanta maxay fadhidii Mombasa meel ay jirtaba coast oo dhan oo iskaga imaatay waxayna qalinku ku duugtay in kuuraha bahgari wax ku saabsan kursiga women rep oo ka hadal uu saneeyno lagu gorgortami karin marka waxayna bahgari diyaar u tahay inay banaanka u baxdo oo meelaha kala constituencyalka kale iyo meelaha kale iyo Wajir county dhamaan inay iyo howlaba ay kula garab istaagaan marka saas ugu insha Allah ما شاء الله أدي هذا ما تنسين لا يشرفه thank you musharaxa kursiga MCA-ga ee Habaasweyn oo isna khadka telefoonka kulankani u qayb galayay ayaa hadaladiisna waxaa ka mid ahaa qadka waxa ku jira nin la baxay Xuseenay oo Habaasweyne oo guddiga ay soo qaateen marka uu idin salaami rabaa bal talo asagana aan dhageysana wixii su'aal iyo wixii tale aad weydiinaysiin meeshana ka weydiinaysiin Mheshimiwa Xuseen salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته si toos ah live lagu dhageysanaya idaacadna way nala joogtaa tolkii jamaasi aadan wax ka maqan ma laha marka ku soo dhaw insha Allah بسم الله تعالى وسلام الله عليكم وأنا مع سنتين مع الله شركة قاسكة أو دويرتين أو أنا غاركين أد نقول هذين بل دتك هلا يصور هاي نقول هذين ما أد يد بل أنا تاسين كي إلا مدورة مدلوات تلك ورطة إن ومر ورب وصل صعد ويسكبر هاي ودنتا كوجرت تلمذا وحوا وحي كيني من ماذا يوحى حريرنا يو وحوا أنت بدن إن لن تجود ونلقى فيريو شخصي أي بدي أنت إسكيراني مركا طلبوا مع سنتين خوسك وحنو مالينا وسوير داديهن إلا وقتي بدن يخوسك كلام مقنع ويكون كلام مقنع نعلمها نمبيك أنت بدن شنتي سنة هورا وحين نقول دبل لوجا تكسي وريسي إذا نوجين نصيب هناك سفر كده أسوي من دي وحنا هيسني لما MC يبي من راب كذب إلهي حولنا مكاني أمونو نفوذ إن جودي سمي سنو جودي قصوا وحل صارنا إن ينصو قادان أما هاي نو حاجان سياسة لوضع كل اللواتني لوا هيتانكي هاي جودي جنا حاجين وحصل بعدين حوك ساريان MP MC Habaasweyne oo guddiga ay shaqadiisa mandatekiisa marka ay leeyahay nasiib wanaag waad ogtihiin historygaas inay idin gal way dheer tahay ani iyo Maxamuud Daay way ka soo baxnay tolkii codkiisa meesha waa yaala dad badan oo dad ay go'aadeen noo soo qaadeen way jiraan oo township MC uu ka mid yahay women rep ayadana socota way jirtaa marka waxa loo baahan yahay tolka meel kasta uu joogo in kii tolka uu dhiso نبي ندافع اللي هيستوى معايا لي dhalashadan maxaa la xisaabuna ma dhaqdo midina ma goyso marka in dhalashadan la ilaaliyo oo carabtu waxay dhahday kama tudiinu tudaan si aad samayso baa lagu sameynaa in marka aan ilaashano maxaa la midnimadeeni iyo tolkii uu maxaa la wax uu meel ku gaaro talo marka awada waxa uu fadhiidina filaya arrimahan siyaasadda qoyski dan weyn baan noo haysiin waxa ka mid ah talo ay tusaale inaad nagu soo kordhisaan waxa ka mid ah in aad resource nagu soo kordhisaan resource-kaas oo shakhsi inuu dadka ay yimaadaan oo agent ay noqdaan ABC dadka shaqeey ay noqdaan qaarkood wixii kharash inuu kordhin karaan ay inuu kordhiyaan iyo kii codkiisa uu meeshii inuu asagana yimaado uu codeeyo marka dadku waxaa loo baahan yahay in la istoodo oo safarkan codkiina meel ku wada dhigno rajaa jirto saad ogtihiinba labada meel ba Habaasweyne ward MCA rajaa jirta inkastoo dad badan ay isla taagan yihiin haddana waa la hagayaa cidi arrimo oo socdaan jiraan hadda cawanimadan safar ayaan u socdaa baqooli pressure xagga ka jira oo arrimaha kala reebreebka qaarkood lagu geli rabo TMP-gina meel badan ayaa la soo maray rajo fiican ayaa la muujiyay tii women rep-tina ayadan haddii waad aragteen aan umalayni waad ka fiirsateen YouTube-skii meelo badan iyo social media in cidihii kale oo dugoodaha khaas ahaan ay gabadhi si xowliga ku wadaan anaga marka waxaan ku qasbannahay inaan gabadhina dhisano
MP-gan dhisano MC Habasweyne oo hadda bahgarida ay gudi ahaan soo qaadeen oo aniga in haddana xoogga saarno sifaan kursiga ku heshino waxaa muuqdo oo noocaad maanta in 2023-2024 laga yaabo in la kala gooyo wadankii kala goonta awgeed meel ciidan ku kala nafaastay inaan u helno marka waxay la tahay fursadii haddaan haynaa wixii 5 sano aan guran lahayn maalmahan ayaa la abuurayaa marka aniga waxayna ka codsanay talow inaadna soo garab istaagtaan waa mahadsan tahay mhashimuha tolka meesha ay wada fadhiyaan aad baa lagu dhageysanayaa hadalkaadana aad buu u qiimo badan yahay xog waraysigaadna siisay dadka waxay isweydiinayaan maadaama wardkaada adiga Xuseen wardkaada uu yahay ward cosmopolitan oo ogaadeen oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan ay ku idishahay dadka tolkaada waad la hadashay aad baad ugu mahadsan tahay waana laga qaatay tolkana hadee wixii nominee ee ka hadal ma laha ilmaadeer maxaa la isxamatay ama isxabaashay taad dhib ma laha marka waxaan ka rabnaa dadkii guud maxaad ugu baaqi lahayd oo Habasweyne ward waa mahadsan tahay horta waxaa la dhahay haan hoos ay ka dhalantaa marka tii haantii hoos ka soo talay tulka degan oo deegaanka Habasweyne afar talafood ogaadeen iyo koona tale bayaanada degan waxaan filayaa in 5 sano hadda aan soo muudnay dhaqdhaqaaq aad iyo aad u weyn aan muujinay haddana inta badan ay ugu faraxsan yihiin inkastoo dadka qabiilaha ay maxallaha nin kasta haba oga jirto laakiin waxaan aaminsanahay fursadii inay jirto oo inuu ogol yihiin dad badan ogaadeenka ka mid yahay fursadii inaynu ogol yihiin markaan haddana xoojisano anigoo waa sameeyey connection oo qoysaska walaalaheen oo nala degan connection badi la sameeyey dadka qaarkoodna ay jiraan dad qabiil aan ku xirneen oo ku xiran qofka shakhsiyadiisii iyo waxqabadkiisii ku xiranna ay jiraan marka ogaadeen agendana way jirtay oo countiga way ka jirtaa marka waxay la tahay in dadkii kale oo qoysaska kale walaalaheen nala degan idinka qaarkiina saaxiibo fara badan ay leedihiin dad badan oo qaraabana way jirtaa in idinkana aad noola hadashaan oo wargaarsiisaan war hebel bal codka iisi aad dhahdaan annagana aan rafano guryaha ugu kalno campaign waqtigeena ku jirnaa strategy campaign fiican aan isticmaalno saas oo kale codkana lagu siiyo anagooba haddii kursiga ninkii soo galo MC ha noqdo MP ha noqdo women rep ha noqdo bulshadaas deegaankaas weyn ayuu mas'uul u noqonayaa qabiil mas'uul uma noqonayo shantii soo muudnada qabiil kale mas'uul uma dhaheen haddana waxaan taagan oo filayaa in ilaahay hadduu igu guuleeyo inaan mas'uuliyaddaas ugu hayn doono reer Habasweyne ward dhammaantood insha Allah waa mahadsan tahay mhashimuha aad baad u mahadsan tahay aad baa lagu dhageystay marka insha Allah bahgarin waxay kugu baaqaysaa inay ku garab taagan tahay dhalinyarada meeshan fadhida 90% waa Habasweyne ward waa lagu dhageysanayaa gabdhaha sidoo kale way ku dhageysanayaan odayaasha way ku dhageysanayaan marka aad baad u mahadsan tahay mhashimuha soo dhaw insha Allah jazakumullahu khayr thank you kulankan ayaa markii uu dhamaaday qaar ka mid ah soo qabanqaabayaashii waxay inooga warbixiyeen kulanka iyo waxyaabaha la isla gartay meeshan waxaan iskugu imaanay shir wada tashi ah oo beesha bahgari qaybta Mombasa waxaanan isku afgaranay nabadgelyada in laga shaqeeyo cidda dadka 2022 mathalaya oo deegaan baarlamaaneedka women repta MCA-ga waxoo dhanba in la taageero oo taageero buuxda la muujiyo oo kuuraha codbixinta laga qayb qaato intaasaan isku afgaranay waxaan kaloo isku afgaranay in taageero buuxda la siiyo mhashimuha Dayow mhashimuha Faaduma Geedi iyo MCA-yaalka ay reerka ay soo xusheen intaasaan isku afgaranay tolkiina wuxuu soo jeediyey in aan taageero buuxdo siino intaasna waan isku afgaranay wax oo dhiboo ka jirana ma laha haddee county markii la dhahana waan soo dhaweynaynaa like minded qofka alla wixii taagan
oo kuuro noo haya maadaama anaga naftirka anaga aan county position u taaganahay sida women rep to kale waxaa waaye Mheshimiwa Harun waa ninka MCA-ga Bahgarida ka istaagay eerka Bahgarida MCA ka istaagay Mombasa County intaas uu ma sheegan ku raacsanahay waxaa kale oo u dirayaa baaq Bahgarida joogto Mombasa ama coast idil inaan shir weyn oo kii hadda kan ka weyn aan qabsarno meel aad naga maqlaysiino idil Mombasa coast region idil dadka joogo Voi Malindi Lamu Kilifi dadka Bahgarida joogo idil taariikh 29 hadduu ilaahay ilaa shir weyn baan qabarnaa inay ka soo qayb qaataan anigu baaqa magacaydu waa Xareed Dhugo Goosaar waxaa ahay dadka Bahgarida oo jooga reer Mombasa waxaan rabnaa inaan dooranno wixii Bahgarida isku soo raacday uu u horeeyo Dhaayo sidoo kale Faaduma Geedi MCA-alka wixii la soo qaaday Bahgarida hadda waxaa ka dhaxeeya Xuseeney in la dhiso waaya marka anagu waan isku soo raacnay reer Mombasa haddaan nahay shir kale oo weyn waa qabsan rabnaa taariikh 29 sidoo ay guddiga sheegeen marka waxaan rabnaa in la iskugu imaado hataa madaxda imaado marka sidaas aan soo dhaweynaynaa magacayga waa Cayni Xasan waxaan joogaa Mombasa waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool Mombasa waxaa si weyn u taageernay oo taageero weyn u fidinay gabadheena Faadimo Geedi iyo Maxamuud Dhaayo waxaan si toos ah uga qayb gali doonaa hadduu alla idmo doorashada soo socoto ololaha doorashada hadduu alla idmo waxaan si toos ah u taageersanahay yarkeena MCA-ga aan soo dooranay Xuseeney marka waxaan soo dhaweynaynaa dadkeenaas aan u dooranay inay doorashada noo istaagaan waxaan si buuxda u taageersanahay intaas qof oo noo taagan taageero buuxdaan u fidinay haddaanahay dadka deganaa Mombasa gaar ahaan countiga Mombasa waana mahadsantihiin salaamu calaykum waxaan rajaynayaa siyaasadda si xasilooni iyo si nabad inay ku dhamaato siyaasadda soo socoto waxaan leeyahay bulshadeynta ku dhaqan Wajeer qaasatan Wajeer South waxaan leeyahay in la taageero Maxamuud bin Salaad qowmiyadaha kale ku nool ciidaha kale ku nool waxaa codsanaya koorooda noo deeqaan si nabad in siyaasadda ku dhamaato insha Allah waxay guddiga beesha Bahgari ay sheegeen inay qaban doonaan kulan ballaaran 29 bishan kaasi oo looga areysan doono sidii loo sii ambaqaadi lahaa taageerada loo muujinayo siyaasiyiinta beeshaasi ka soo jeeda ee kuraasta uga tartamaysa ismaamul goboleedka Wajeer.